laba kun iyo sideedii bishii 9 Sebtembar kowdeedii ayaa la furay dugsiga si rasmi ah. ujeedooyinkii ka dambeysay loo aasaasay in yar maad nooga bidhaamin kartaa? ujeedooyinka loo aasaasay runtii aad u fara badan yihiin. waxaan oran karaa waxa ugu muhiimsan dadka degan degmada Boon magaalada gudaheeda iyo agaarkeedaba horey uma haysanin fursadan oo dugsi secondary kama jirin. waxa dhici jirtay caruurta markay ka baxaan fasalka 8aad in loo diro Boorama dhaqaale badan ku baxo qoyskii oo kala durko kala tago culays badan ay ku noqoto waalidkii in awlaadii ka warhayaan oo dhaqaale ahaan uga warhayaan iyadoo baahida la dareensan yahay oo laga dhaqaaqayo ayaa waxa yimid hindisahan in la furo dugsiga sare Boon. runtiina waxa abaabulkeeda qayb weyn ka qaatay Allah ka jazaayay Idris Maxamed Saad oo dhisay fasalkii u horeeyay iyo ofiskii u horeeyay iyo ofiska dabadeedna oo sidaas ku balaadho maanta maraya 3 kalaas oo marayo. marka runtii ujeedada loo aasaasay dugsigan taas ugu muhiimsanay iyada oo baahi xoog loo qabay in la helo iskool aynkaan maadaama ay bulshadii tira ahaan kordhayso baahida waxbarashada kordhayso. markii ugu horeysay dugsiga la bilaabay trainta leg oo ardayda ku bilowday marka 4 kalaas buu maraya maanta runtii oo tira ahaan gaaraya 60 xoogeen laga yaabo kor u dhaafaan oo 60 adoo kow iyo laba carabaabaya marxaladii kala duwan ee dugsigu soo maray bal xoogaa warbixin naga sii. runtii maraaxisha uu soo maray inta uu furan yahay sanadkii afraad bay marka galayaan. kulli waxa ugu muhiimsan ma oran karaa isbedelka uu ku keenay magaalada oo aad iyo aad u muuqda oo la dareemi karo maanta. dhalinyartii ka tagi jirtay magaalada ay leen jirtay oo joogta hamigii waxbarasho oo kor u kacay oo darkaysa dhalinyartii oo buug sidata oo meelaha wax fadhida wax ku akhriyaysa halkii awal ama ay ku badkiisa ku ciyaari jireen ama ay waxyaabo kale oo waqtigooda dilan ay ku bixin jireen waqtigooda. maraaxisha uu soo maray iskoolka waxa kamid ah runtii in aan la aaminsanayn dad badan ay marka hore ayna rumaysnayn iskoolku yani sida umralayo oo natiijo aad u qiimo badan oo sida balaaran oo keeni karo iyagoo dad badan ay ka deerin jireen yani in uu socon karin oo dhaqaale ha noqoto kuwa akadeemi ha noqoto. laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin maanta wuxuu marayaa meel yani didiilo fiican la qaabi karo. intaad maamulka soo haysa in caqabadihii kuugu darnaa ama ugu cuslaa soo wajahmaad kow iyo laba maad ka taaban kartaa? runtii kulli dee shaqo haddii la qabanayo ama hawl gacanta lagu hayo caqabad la'aan ma dhacayso. waxa weeyaan waa sunnatullahi fil kown. ilaahay baa ku talagalay kownka inay caqabad sii jiraan shaqo kastoo la qabanayo. kulli caqabad kama maqnayn meesha. waxaana runtii ilaahay uu noo sakhray oo ka soo gudubnay. waxaana ugu muhiimsan runtii caqabadka kulli dhaqaalaha dugsiga oo الموضوع يعني إنه كوكو بينه ولا بقى عندي الله يسمع قدام بيسمع كيو ريات بالله بقى قاتل جارية الريربون دي بدأ جوفت ومكة لحد أنتوا بقدم لكن الله يسمع قدام بي يدرس محمد سعد يا الموضوع ولا يسكين اللي بدأ يشيلتي سنة كنا إنما أيا الحلقة ويلهم على ما صوب حنا والسيادة ومعلن كانوا بحنينا مركا كل ولول حاجة دقارة ayaan oran karaa in caqabada ugu weyn ee iskoolka ilaa maanta yani horta alla inay tahay tirada guud ee macallimiinta ka hawlgasha dugsiga secondary-ga Boon waa imisa? 5 macallin ayaan ku shaqeynayna runtii ayaa iskoolka ka soo shaqeynaya tan iyo intii la furay ilaa maanta. laakiin sanadka waxaan ku soo siyaadinay macallin 6 bay noqonayaan gabar baan ku soo siyaadinay macallimada noo imanaysa خليه بنقولي إن شاء الله سنة كمان كويتون لبكم كويتون إن حق كنا ده معلمين تا حق وسارد ها وحمي نجا عاوز وسارد الله معلم نجا عاوز لكن معلمين تصدق لكله ولي وما هيان كنا دي وسارد كدومية هسه جوح برشة قبلتها هسه بحد سوى شيء دينا يطلع
والله إحنا سوي جدا رنتي كلي ترد ما كي سبعة كم مغني صلاح في اليوم وما نسوا بنحسسين لها إن إسكول الله دبور من حوج على سالين دوسية كم أحسن مجالده تولين كيدموي كيالا إن حوج الله صاروا بس ده هو مرة ولا وجارو برشلنا أي سكون ميسامتو يعني هم بيجون نقول المجال كلي الله صارت الحوج الله صار إن أي سوي جستان دموين كيو تولين كم أحسن عاصمة قبلك سبح برشلي runtii loo gaarsiiyo meel fiican dadka waxbarashada u baahan ee duruufta dhaqaale ay u saamaxayna la gacan qaado saad ii sheegtay carababtay waxa tiri sanadkan ardaydii ugu horeysay ayaa ka baxaysa kalaaska form 4 natiijooyinka laga yaad ka filaysaa in ardaydaasi imtixaanaadka Soomaaliland ay ka soo hooyaan degmada Boon runtii insha Allah taala sanadkan 2011 2012 waa sanad dugsiyada ka bilaabmaya waxa yeelana class form 4 waxa ka qalin jebin doona sanadka soo socda ardaydii u horeysay dugsiga sare ee Boon wana wax lagu farxo runtii oo aad iyo aad loogu qabowsado ardaydaasi waxay ka dhan yihiin 12 arday waxa ku jira dhalinyar arday aad iyo aad runtii ورجينا مستقبل في عام يعني سجود قبلك سجارة مجال البون اللي أتاجر وحبرشة وحب كتيرة إنما إمك فنفور كجالية ودوس جاه وصل إحنا قلنا كده بقولنا حدقة مركي اللي أجي مستوه ودي أقومت ودي إني أقوم في عينهم بضد بدنا وحرك بدنا حتى معلمينا ودوس جدا كذا حدقة أي المدة أقومت ودي إني أودي ما أي بكفي عنها مركا واحد أوران كنا وأرضي لو كل صوران كرا يعني آد إني مقع في عن سوجيدان أسوه يندوس كسرابون إن شاء الله تعالى سهل جيني. إن جدهان أبتدأ لقيت دكس كسرائي سكن درجابون وايمسا هذا لم يدي تجنو خلق قاضي. جدهان وحنا نقول يعني مع فوما كين كسوق عليها سهل جيني إن شاء الله تعالى وحنا نقول اللي إحنا الأرضي أفريتهم باقي بلا. وانقرت هذا مناسبة ما تبقى فايدة سنة يعني قرب جوجا ريبون يدي بدك جوجا محاد يجا كله تلنهايت قرب جوجا رنتي سان صوت المامي كل سنة يهوري غيب في قوهنا قاض لو ما كنا حالين انت بدن هجران دad كل دي dadku isku garasho iyo isku aqli iyo isku karti ma aha waxa oran lahaa دي كل مجالدين أدول لرتين تكسر جدًا ديجانكي أتكسر بربارتين النورش إنه كسر بالعمتي واحد أبو قيمة قبضان اللي تكتر جاري كرتان كل واحد برشلة أنا أذكر وكوبي كتاعي مركا إنا أسوي جيزتان أو تاجرتان واحد برشلة جودهان دارهانة السكندري أو في الدبر واحد برشلة مجالد أدو السكندري ويستعجوا waxbarasho la tilmaami karaa ma jiray dugsiga wasabaxe itaalkiisu wuxuu noqonayaa mid aad iyo aad u liito daciif noqonaya marka waxaan oran lahaa kuwii aan ka qayb qaadan waxaan leeyahay ka qayb qaata oo soo jeesta dadkeena iyo bulshadiina kuwa ka qayb qaatana waxaan leeyahay ka joogsanin oo ka caajisanin dadaalka halka ka sii insha Allah taala mustaqbalka kaasi waxa